askariga la joogana uu la dagaalamay ilaa uu calanka gudaha keeno markaana in lafta ka dhacdo xorriyadda runta ah taas waay qofka wadaniga runta ah taas waay midka beenbeenta ah ma aha ciidan geesi aan leenahay annaga ciidankeena geesi waa siduu meesha joogo waxaan rabaa inaan saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda caruurtooda meel kastay joogaan ciidanka erka aan ugu hambaliyeeyo sanad guurada 62 ee ka soo wareegatay asaaska ciidankan waa ciidan sharaf ciidanka oo dhanba kulligiisba maanta muhiimadda ciidanka erka leeyahay waxaa ka weyn muhiimadda ciidanka badda oo loo qabo marka runta loo hadlo waana ka sahlan tahay in la dhiso oo ciidadaa raba laakiin cillad buu leeyahay cilladaasoo la daaweyna ma la dhisi karo ciidanka badda waxaa runta in laga sheegaa fiican laakiin waa ciidanka ugu muhiimsan maanta ugu horeeya si sahlanna loo dhisi karo cid kastana ay u hayso awooddii lagu dhisi lahaa laakiin annaga aan u jeedin ilaahay waxaan leeyahay kas bilow taliyayaasha aniga weliba taliyayaasha ciidanka soo maroota saaxiibada ee soo joogay in kastoon ogahay inay dadaal badan galeen iyo wasaaradda gaashaandhigga ma gelinin waktigii ku habboonaa ciidanka madaxda kale iska badaaba maba ogaba kuwa kale inuu jariyo in kale laakiin ma gelinin hadda agaasimaha guud aa nagala jooga wasaaradda iyo dowladda dhexe waxaan leeyahay ciidanka in la siiyo waktigiisa aad bay ugu habboonta ciidankan asaa isku filan dhaqaalihiista xeradiisu kala soo baxayaa wuu haystaa tuba yaan la gashanin laakiin wixii ha loo keeno wadamada diyaar noo yihiin walaalaha annaga turki anugu waxaan ugu mahad celinaya aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa wadamo kale qatar ka mid tahay masar ka mid tahay xataa hadda maraykankii baa maalmahaan xodxodasho soo bilaabay dad walba diyaaray u yihiin laakiin annagaa diyaar ahay dowladanadaa diyaar ahay 2016kii ayay qortay nimankii turkisom oo muxuu ahaa la taliyaha ahaa qorshihii ciidankaa lagu dhisi lahaa hal qof oo saxiixaa la waayay hal qof oo dowladda ka tirsan oo la yidhaahdo qorshahaas noo fuliya safaaradda ama military attaajeega turkigana wuxuu u gudbiyey qorshahaas wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda intaba uu gudbiyey 2000 aniga iyo amar dambe markaas raacnay qorshihii oo qoran ayuu wasiirka gaashaandhigga noogu sameeyey presentation qorshihii la qoray ayuu presentation noogu sameeyey oo yidhi maxamuud diyaaraddaa soo dalbatay waa taas annaga waa naga diyaar laakiin adinkada ka diyaar maaha hal qofoo saxiixaa la waay madaxweynaan u geeyey ra-iisul wasaaraan u geeyey taliyaan u geeyey wasiiraan u geeyey hal qofoo saxiixaa laga waayay marka gacan gadaal ka qabsana ka baqaysa horogoodka ma goyso gacanta gadaal lagama baqo waa wixii 60kii nagu dhacayo noo geeyay inaan madowga sufiyaan gacanta inay baqda maaha geesinimaa loo baahaya go-aanaa loo baahaya waxqabashaa loo baahaya marka waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iga raalli ahaadeen agaasimaha guud ee wasaaradda taliyii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyihii ku maxamed aadan labadii abbaanduule taliyaha ciidanka cirka taliyaha turkisom taliyaha ciidanka cirka iyo ciidanka raalli ahaada ciidanka badda iyo ciidanka dhulka madaxda saraakiisha taliska guud hogaamada taliska guud oo sida mugtala uga soo qayb galay dhammaan inta joogta waxaan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad nood ixtiraamteen noogala soo qayb gasheen aada noo soo danaynaysaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladda turkiga sida ay noo garab taagantay oo wax dooryaal noola tahay laakiin annaga aanan u dhaqaaqayn waxaan rabaa inaan hambalyo u diro barlamaan ciidanka saraakiil xigeenada alifleyda iyo dabladeyda xaasaskooda iyo caruurtooda inta jirto inta nool inta dhimatan ilaahay u naxariisto haddaan waxaan dhigi doonaa ubax oo lagu xasuusanayo taaladoodii aan dhigi doonaa aan ku xasuusanayno ciidankan taliyayaasha geesiyaalaha soo maray geesi ah karti badan aad u qayso badan alimataan xaasha allah u naxariisto agaasimaha guud waxaan u malaynayaa inuu dariiqi maxamed siciid samatir ku socdo laakiin geesinimadeed inuu leeyahay ma hubo
maxamed siciid samatir gacaliye mar aanu hawl isla galnay anoo berbere taliya ka ah soo wafdi wada uu berbered geeyey wafdi malaykan ah oo waagi la dhihi jiray waxaa la dhisayaa bays waxyaabihii uu ka sameeyey maalintaas uu qiratay agoosteed waa markii ugu kulushahay berbere ilay gaaraan bays ma jiro jaraa'idka adduunka u sheegeen uu diiday inuu ka wado meel hoos lana geeyo markay ku qasabtay inay birxaqiraan ay yidhaahdeen bays ma jiro berbere uu soo qaado hargeysa geeyo markaasay yidhaahdeen asaan la qasbay nin gaashaan la dhaxa ah oo ciidanka cirka malaykanka ka mid ah oo mig 17 ku duulay oo mig 17 intuu yiri ku duulna barabta diyaarada ma arkaa ninkaasaa la mid ah kala soo geesinimadaas oo kale loo baahan yahay waana kaa sugaynaa ilaahay idinkiis waxaan leeyahay marka waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkaas kasoo qaybgalteen dhammaantiin xoogaa markaa waxyarna aragnaba waxbaan burqanaynaa waxbaan na dalqanaya meeshaan anoo yar iyo anigoo 80 jir ah hadda joogna waa taariikh bay lahayd meeshaan xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo kulli laga xukumi jiray quruxdaan ogaan lahayd waxay soo martay la yaqaano xafiiskan fadhi waa wasiirka gaashaandhigga ugu horreeyay xafiiska u fadhiistay waa xafiiska jenaraal daawud iyo jenaraal maxamed siyaad waa xafiiska meeshii kacaanka laga sameeyey taariikhda ciidanka halkaas ay ka timid marka waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha